qaaday baan foornadii oo dabka shidmayo oo miici iyo dhuxulo ku bisil yihiin roodhiga lagu dubi jiray baan hooyada intaan isku duuduubay oo dumiyay qayb kamida baan dhex dhigay oo ku daboolay iyadoo cabaadayso hooya ile ninka la oran jiray Harun al-Khurasani wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah muslima Harun al-Khurasani wuxuu ahaa dhalinyaro muslima qoys wanaagsan oo saalixiin ah dhalay qoyska wanaagsan ee saalixiinta ah ee dhalay aabi iyo hooyo isqaba dhalay si wanaagsan buu koray masaajidku safka hore iman jiray maqribyada kamid isagoo masaajidka u soo socdaa wuxuu arkay caruur kubad ciyaarayso masaajidkii diidano aan tagaynin oo niman waaweyn oo isaga ka waaweyn wuxuu isiri qalbigiisa naxay oo wuxuu yiri caruurtan walaalahaagan mad salaada ugu yeedhido intuu tagay buu ku walaalayaal kale tukanay xalal sheekh dhowr daqiiqaan ku balano 2-3 daqiiqaan noo dhiman noo yara istaag waan ku raacay daqiiqadii baa la dhameeyay waa la israacayo masaajidkii baa la aaday waa la tukaday maalintii labaad buu soo maray wuxuu walaalayaal inna mariya waxay yiraahdeen wax yar noo kaadiyo in yar bay ku sii dareeno rakacada hore u gaari jiray ama takbiirta hore takbiiratu ihraamku la ridan jiray imaamke uu ka daahay maalintaas oo wuxuu yimid rakacadii labaad maalintii saddexaad waxay ku yiraahdeen sheekh inagu waa jamaacan nahay halkan inagu tuki halkiibu ku tuki ya maalintii saddexaad waxay yiraahdeen niyow saaxiibaan nahay maada salaada nagu horta noo yar kaadi bal ilaa maqribkii baxay ay cisho tukadeen maalintii afraad isaga la tashkiiliyay oo meelaha ay u kici jireen ba u sii qaadeen aabihii baa raadiyay wuu garaacay salaadii buu ku soo noqday way kala maqnaayeen muddo maalin dambe la isa salaamo leh Allah war cunugii fiicnaaniyo xaq uu ka masaajidkii buu ku noqday dhowr jeer markay dhacday taasi oo arintaasi socota buu aabihii dhintay oo malagi galay aabihii baa dhintay wiilashii buu toos ugu biiray marka isagoo wiilashii la socda yaa wuxuu yiri waxa lay baray khamrada waxa lay baray daraagiska waxa lay baray inta xun ee bani aadam cuno oo dhan baan bartay inta xaraan ah la sameeyo dhanna waan bartay wuxuu yiri hadda khamradan cabaa laakiin wali gaalnimo ma gaadhin mushrik ma noqon maalintii dambe wuxuu yiri aniga ku kalo meel joogna yaa la yiri gabdhaanu magaalada inooga keenayna gabdhihii sidii loogu maqnaa baa waxa la keenay buu yiri gabdha ay walaashay ku jirto markii hore waan daroogaysnaayo maba garanaynin goortii wuxuu yiri wax walba ay dhamaadeen oo mid saaxiibka iyo xumaan walba ku sameeyay walaashay bay soo kacday oo iyadii garatay naxday oo arkayado sii ordaysa waan eegay mise wallahi waa heblaayo waan ka daba kacay oo kiibaan midi caloosha ku kala wareejiyay buu koow dhiigi islaam buu galay salaadii uu ka tagay khamradiina waa cabay dhiig islaamna waa maraya Soomaha habeenada ka dambeeya Ramadaan baa soo galo habeenku Ramadaan ku dhamaaday iyadoo takbiirta la qaadayo baa anoo khamro ka soo dhargay baan gurigii hooyaday imido hooyaday baa aad intay u ciishootay bay tiri maxoolihii hebel baano nool khamro lagu cabaya markaas ay wax meelahan igaga dhufato goortan xanuunsaday yaan habartii yar dharbaaxay oo markaas aan isirwanayo kaalay habeen walba wayba ku haysataa maxay ku haysataa intaan qaaday baan foornadii oo dabka shidmayo oo miici iyo dhuxulo ku bisil yihiin roodhiga lagu dubi jiray baan hooyada intaan isku duuduubay oo dumiyay qayb kamida baan dhex dhigay oo ku daboolay iyadoo cabaadayso hooya ile maba garanaya buu ficilka aan sameeynay leena waxa la dadka maanta daraagiska isticmaalay wax bani aadama oo wuxuu cunaya ku iibsada jirkiisa xubin kamida dadka daraagiska isticmaala la arkay daraagiska dadka hadaad gaajoota maanta kolla ishaada gadan maysid hadaad gaajoota lugtaada kolla gadi maysid si walba haday wax kuugu dhacaan kolla xubnahaaga gadi maysid laakiin ninka daraagiska isticmaala markay dhibaatada ku adkaato kalidiisa iyo ishiisa iyo dhagtiisa waa iibinay xuri waan ku daboolay meel baan istuuray oo iska seexday muddo markaan jiifay islaantii baa loo soo orday oo iyadoo qurjujumtay baa loo yimid waa la aasay markii la aasay baa gurigii la iga saaray subaxdii dambaan iska soo qureec doonta islaantaydii markaas ay tiri iimaanka alla ka qaad ma waxaad xalay samaysay baad aniga qureec iga rabtaa warsoo iimaan laawi hooyadii dilay matid na maxaad leedahay markaa uu quman yahay na maxaad leedahay hooyadaa baad xalay dishay seenu dilay hooyaday anigu xalay maba aragay warmeenaad hooyada xalay dab ku riday baadan ogeyn oo intaad god ku riday waliba aad afka kaga dabooshay dhuxulaha ololay oo foorno ku shiday xalay hooyada ma ogi buu halka markaan marayay baan baraarugay buu marka waxa ay gaaray markaasaan gartay markaasaan dadkii iyo adoomaha oo dhan ka cararoon isiri bal ilaahay caabudo bal inaad hadda soo noqon karto isku day
39 jeer markaan xajiyey yaa imaamka la odhan jiray Maalik ibn Diinaar ee taqiga ahaa ee caabidka ahaa maxaan ku dhahdaa salafkii ummadda ka midka ahaa Maalik ibn Diinaar baa xajka yimid xajka markuu yimid buu iyadoo Carafa la taagan yahay buu Ilaahay aad u bariyay markuu Ilaahay aad u bariyay baa wuxuu ku riyooday iyadoo haatuf la hadlayo qalbigiisa lagu soo riday inta ruux riyo ugu yimid baa wuxuu ku yiri dadka halkan taagan oo dhan Ilaahay wuu dhaafay ilaa qof mooyee intaan naxay baan booday oo isiri buuri malaha dee waaba adiga alla Ilaahu keligay maanta ka ugu nasiib daran hayga dhigeen waan ordayo waan cibaadaystay oo waan dadaalay bisa haddana intaan daalay bay lulma uun sidii oo kale geedkii hoostiisa igu soo dhacday waxaa la yidhi ninka la yidhaahdo Abu Ahmed Haarun al-Khuraasani ninka mooyee dadka inta kale maanta joogta rabbi waa u dhaafay waa maalinta Ilaahay ducada bani aadamka oo dhan aqbala way wuxuu yidhi waan soo orday waan raadiyey waree Khuraasaan bicsadoodii halkay degan tahay qoladii xajka uga soo qayb gashay halkaasay degan yihiin waan u tagay waxaan idhi walaalayaalow Haarun al-Khuraasani tus markaasaa la yidhi Haarun al-Khuraasani miyaanu ku tusnaahaa waa ninka duqeehe cibaadaysanaya ooyaya salaada ku jira markaasaan ag fadhiistay salaadii markuu ka baxay yaan salaamay markaasuu igu yidhi Maalik ibn Diinaar baa tahay haa maxaa doonaysa bal ii waran markaasaan idhi buu niyahow arrin la yaab laan arkay malaha dee shaydaan baa dhagahaygaga kaajay ninkaaga caabidka caynkaasa magiciisa intaan ku riyooday baa la igu yidhi ninka mooye Ilaahay inta kale oo dhan waa aqbalay acmaashooda soo garan maysid ka waran markaasuu intuu saa ii soo egay igu waa nasiib darro aan qabo oo 39 jeer oo maanta ka horeysay baan halkan imid oo 39kii jeerba Carafa ruux baa intuu ii yimid igu yidhi adiga Ilaahay kuma dhaafin oo waan kugu riyo waa markii afartanaad buu yidhi Maalik waxa dhamaystiraysaa markaasuu bilaabay inuu ducaysto yiraahdo Ilaahay hadadan adigu ii dhaafin yaa kale ii dhaaf inuu Ilaahay u tabarruco aad isu bihiyo aad u ilmeeyo Ilaahay oo gaftaasi way iga dhacday aan jahlin ba igaga dhacday cilmi la'aan ba igaga dhacday Ilaahu hooyaday waxaan ku sameeyay kii isaga maana ahayn laakiin sababta ana lahaa waxa weeye Maalik ibn Diinaar wuxuu yiri markaan isagii ka noqdoon muddo joogay maalmihii lagu jiray ayaamu tashriiq habeenkoodii habeen kamida oon mina u hoyday baan haddana riyoodo la igu yiri Ibraahim Haarun al-Khuraasani Ilaahay waa u dhaaf waxa weeye xumaanta dambiba horta dambigu ku dhiiba laakiin Abdullah ibn Abbas wuxuu ku tagay qofkii qof dila Ilaahay agti toobad ma laha Soomaalidan garan wuxuu yiri u heli mahayo waxaan ku fasiro khalidan fiiha wuu ku waaraya macnaheedu waarid aan ahayn inuu waligi ku jirayo hadduu toobad leeyahay Ilaahay khalidan ma yiraahdeen buu Abdullah ibn Abbas